war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa shaaca looga qaaday in xayiraad dhinaca socdaalka lagu soo rogi doono mas'uuliyiinta hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore uga tirsanaa oo lagu eedeeyay carqaladeynta geedi socodka waxa loogu yeeray dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiise oo ka dhana shakhsiyaadka hadda xilka haya iyo kuwa hore uga soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay dhaqangelinta siyaasad ku xusan qodobka 212 xarafkiisa ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha dalkaasi ee xadidaya soo saarista fiisaha dalku-galka madaxda hadda xilka haysa iyo kuwii horey ama shakhsiyaadka kale ee la rumaysan yahay inay mas'uul ka yihiin ama ku lug leeyihiin tallaabo kasta oo wax u dhimaysa geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Mareykanka. Cunaqabatayntaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inuu la eegan doono mas'uuliyiinta ku lug lahaa rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha, xariga aan cadaaladda ahayn ama cagajuglaynta loo geysto suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo ku tagrifalka geedi socodka doorashada. Wadada ugu wanaagsan ee Soomaaliya nabad waarta ay ku hanan karto waa dhameystirka doorasho la isku haleyn karo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Mareykanka ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya inay fuliyaan ballanqaadadii ahaa in hab lagu kalsoonaan karo oo daahfuran lagu soo dhameystiro hannaanka baarlamaanka marka la gaaro 25 Febraayo, taasi oo asaas u noqonaysa in dhidibada loo aaso dowladnimada Soomaaliya. Mareykanku wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed, waxaa naga go'an inaan ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray Mareykanka. Si kastaba lama oga shakhsiyaadka ay xayiraadda ku soo rogi doonto dowladda Mareykanka, kuwaasi oo loo badinayo inay qayb ka yihiin madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.